dowladda Soomaaliya ayaa qaadaysa tallaabo looga falcelinayo go'aankii Mareykanka uu ku sheegay inuu joojinayo taageerada ciidanka uu ku siiyo Midowga Afrika dhaqaalaha ay ku joogaan Soomaaliya. waxaana la sheegay in toddobaadyada soo socda Soomaaliya ciidankeeda ay qaadayaan howlgalladii ugu dambeeyay ee lagu ciribtirayo kooxaha argagixiso. Mareykanka ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku guuldareysatay inay ka adkaato shabaab, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu joojiyay taageeradii dhaqaale iyo midii maaliyadeed oo uu ku bixin jiray ciidanka Midowga Afrika ee 21 sano ka badan ku sugan gudaha dalka. tallaabadaasi wixii ka dambeeyay waxaa la sheegay in dowladda Soomaaliya ay go'aansatay in ficil ay uga jawaabto warka ka soo baxay Mareykanka, waxaana la sheegay in weerar ay qaadayso lagu sheegay in lagu sifeynayo kooxaha xagjirka ah ee nabadda ka soo horjeeda. go'aanka Mareykanka waxaa la sheegay inay go'aansadeen madaxda Soomaalida inay ficil ugu falceliyaan, waxaana la tilmaamay in dowladda ay qorsheynayso sidoo kalena muddo gaaban ay ku soo gabagabeynayso diyaargarowga weerar la doonayo in lagu qaado kooxaha shabaab si looga adkaado. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u sheegay ama maalmo ka hor sheegay in dowladda markan ay qaadayso weerar kama dambeys ah oo lagu soo afjarayo kooxaha nabadda diidan. madaxweynaha waxa uu tilmaamay in dhawaan ay soo bandhigayaan nuqulka lagu soo afjarayo shabaab, sidoo kalena ay u diyaar garoobeen in la cirib tiro shabaab sanad gudaheed. waxaa la sheegay in dowladda ay qaadayso tallaabooyin looga falcelinayo go'aanka Mareykanka ka soo baxay iyo warka uu sheegay oo ah in Soomaaliya ciidankeeda ay ka adkaan waayeen shabaab. isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsiin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga. waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga iyo inuu joojinayo taageerada dhaqaale iyo midda maaliyadeed ee uu ku taageerayo ciidanka Midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala. Soomaaliya waxaa muddo dhowr iyo 20 sano ah jooga ciidan Midowga Afrika ee ADMIS, balse kuma jirin muddooyinkii u dambeeyay howlgallada iyo duulaanka ay qaadayaan ciidanka Soomaalida ah. taas beddelkeeda waxaa la sheegay in Soomaaliya markan iyada ay isku tashanayso oo ay qaadayso weeraro looga saarayo shabaab dhulka ay ka haystaan deegaanada dalka. wixii warar ay soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan hadduu ay beedmo.